Waa qaybtii labaad qisada Arwa al-Qayrawaniya oo ah gabadhii ugu horeysay Muslimiinta ee odaygeeda ku sandullaysay inaanu la guursan. Sida uu Abu Cusmaan al-Jaaxid ku sheegayo kitaabkiisa Al-Maxaasin wal-Caadaad, muddo 10 sano oo uu xilka hayay, Abu Jacfar al-Mansuur wuxuu isku dayay inuu buriyo shardigaas meherka Arwa iyo inuu helo qiil dhanka shareecada Islaamka ah. Wuxuu waraaqo isdaba jooga u qoray culimadii cilmiga fiqiga aqoonta u lahayd ee ku sugnaa deegaanada Xijaas iyo Shaam oo dhan. Waxa uu raadinayay in culimadaasi ay u fatwoodaan inuu guursan karo gabar labaad iyo inuu yeesho haween addoommo ah, iyadoo aanay xaaskiisuna helayn shardigii ay xilligii meherka ku xidhay ee ahaa inaanu la guursan. Arwa gabar hawl yar may ahayn, mana ay moogeen dhaqdhaqaaqyada odaygeedu ku raadinayo inuu shardigii meherkeeda buriyo. Sidaas awgeed, waxay dhankeeda ka gashay dadaal kullid ama ka soo horjeeda doonistiisa. Waxay markasta ka ilhoreyn jirtay odaygeeda, lacag badan ayay u diri jirtay sheekh kasta oo laga yaabo inuu warqad u qoro, iyada oo ka dalbanaysa inaanu fulin dalabka hogaamiya Abi Jacfar al-Mansuur. Arrintaas ayaa keentay in wadaad kasta oo warqad u qoraa uu ugu soo jawaabo inuu shardigii meherka Arwa ilaaliyo, oo aanu gabar labaad la guursan ama gabar addoon ah samaysan. Abu Jacfar ma uu doonayn in tallaabada uu qaadayaa ay noqoto wacd fur aan qiil lahayn oo uu ku sameeyo shardigii Arwa, mana uu fahmin in guntinta uu xidhaba ay Arwa furayso. Sidaa awgeed, kama uu daalin qoraalkii waraaqaha ee uu sii waday, oo wadaadkii meel loogu sheegaba inta uu u diro ayuu ka codsanayay inuu qiil u raadiyo. Sannado badan kadib oo ay geeriyootay Arwa, ayaanu ogaaday farsamadii ay ku hor istaagtay qiilka uu raadinayay. Taariikhyahanadu waxay sheegaan markii ay Arwa geeriyootay in Abi Jacfar uu ku maqnaa safar magaalada Xilwaan ee u dhow dhulka hadda dowladda Iiraan ka taliso. Markii warka geerida loo sheegay, tallaabadii ugu horeysay ee uu qaadayna waxay noqotay inuu dalbado 100 addoomood ama jaariyad oo gashaanti ah. Halganka adag ee Arwa ku guuleysatay inay jebiso dadaaladii uu saygeeda doonayay inuu ku buriyo shardigii guurkooda, iyada oo dhinaca kalena ilaalinaysa jiritaanka qoysnimadooda. Arrimaha xiisaha leh ee Marwo Arwa ku kacday ma ahan tan aynu ka soo warannay oo keliya, balse waxaa kale oo xiiso leh sida ay markii u dambeysay u qaybisay hantideeda si ay uga hortagto inay dhaxasho cid aanay doonaynin. Inkastoo uu Islaamku beddelay fahamkii qaldanaa ee Carabtii hore iyo qaybo ka mid ah bulshooyinka kale ee adduunku ka haysteen haweenka, isla markaana la caddeeyay kaalinta muhiimka ah ee ay bulshada kaga jiraan, haddana muddo ayay qaadanaysay in dhaqankaasi uu ka wada dhex baxo shucuubta Muslimiinta ahaa, gaar ahaan kuwii Carbeed ee ay Arwa ka dhalatay. Waqtigan oo la joogay, Ciraaq weli waxaa raad weyn lahaa dhaqankaas kala fadilaya ragga iyo haweenka, gaar ahaan dhinaca dhaxalka oo wiilasha oo keliya ay wax dhexli jireen. Arwa waxay arkaysay in arrintaasi ay dulmi ku tahay bini'aadanimada, shareecada Islaamkana baal marsan tahay, laakiin aanay waxba ka qaban karin. Sidaa awgeed, waxay qaaday tallaabadii ay hantideeda kaga badbaadin lahayd in sifadaas khaldan loo dhaxlo. Gaar ahaan markii uu odaygeedu hadiyad u siiyay beerta weyn ee lagu magacaabi jiray Raxba, oo ahayd beer wax soo saarkeedu badan yahay. Arwa intii aanay dhiman ayay beerteeda ka dhigtay waqaf dumarka oo keliya u furan oo ragga ka mamnuuc ah. Tallaabada meherka Arwa waxay dhaqan ahaan weli ka sii jirtaa dalka Mauritania, sida uu taariikhyahanka Jaasir bin Khaliil Abu Sayfa ku sheegaya kitaabkiisa Xuquuqul Mar'a fi Burdiyaati al-Carabiya calaa Dawi al-Kitaab wa Sunnah. Mauritania raad badan ayuu meherkaas Arwa ku leeyahay. Culimo badan ayaana aqbala in gabadha iyo ninka ay isku guuriyaan shardiga Arwa oo kale haddii ay lamaanuhu iyaga marka hore arrintaas soo go'aansadaan, iyada oo lamaanayaasha shardigaas la isku meheriyaana ay hadhow sharci ahaan culimadaas u diidaan inuu ninka xaas kala guursado, maadaama oo haddii uu guursado ay xaasku ka furmayso.
Haddaba saaxiibayaal, aragtidiina idinkoo isbarbardhigaya guurkii waqtigaas iyo kan maanta, haddii Abu Jacfar al-Mansuur oo hogaamiye dhan ahaa uu ilaaliyo shardiga xaaskiisa, maxay tahay sababta rag badan oo Soomaaliyeed ooridooda uga dul keenaan mid kale? Ma jiraa axdi markii hore la wada galay, mise jiraan culimo kala difaacaysa? Inala wadaag aragtidaada. Muuqaalkanna waa wacyigelin guud inoo sheer gareeya.